sanad walba bishan oo kale March ayaa dalka Australia waxaa loogu dabaaldegaa toddobaadka dhaqamada jaaliyadaha ku nool dalkan. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay xafiiska jaaliyadda Soomaalida ayaa waxaa kala qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Victoria iyo waliba qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya dalkan Australia. Forum weyn oo Australia ah culture-ka Soomaalida. Haddii Ilaahay naftanooda taan u diyaar garooba waxaan idin rajaynayaa guul aad baan ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo. Mas'uuliyiintan goobta ka hadlay waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in jaaliyad walba ay soo bandhigto dhaqankeeda si ay u bartaan carruurtooda halkan ku dhashay oo aan dalkooda arag. waxaan hadda u yeero Faarax warsame taqaantiin. Faarax waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Victoria. Gudoomiye la'aan community shaqeynayso adduunka meel ka jirta malaha. maanta caawa annagu ka Soomaali ahaan halkan ayaanu ku dabaaldegi doonaa haddii Ilaahay idmo. waxaan nala joogaa marti MByo iyo rag kale oo culus safiirkii ee qunsulkii Soomaalida oo nala jooga. hadafkeena ujeedadana waxa weeye inaynu soo bandhigno dhaqankeena annagu ka Soomaali ahaan. halkan caawa waxaa lagu soo bandhigay agab Soomaalidu dhaqan iyo hidaay u leedahay oo runtii magacyo kala duwan leh sidaad arkaysaan. waana toddobaadkan waxaa Australia guud ahaan loogu dabaaldegaa dhaqamada kala gedisan jaaliyadaha halkan ku nool. waxaana la sheegaa magaalada Melbourne inay ku nool yihiin in ka badan 200 oo jaaliyadood oo leh dhaqamo kala duwan. qofkii dhaqan iyo culture-kiisa aan soo bandhigin waa duugmaa. Soomaalida dad badan baa waxay ku leeyihiin haddii dhaqanka iyo culture-ka la galo khalad baa la galayaa. war khaladku waxa weeye ilmaha markaad culture-kana aad uusan baran uusan aqoon u lahayn waxa uu yahay ilmahaas waxa ku dhacaya inuusan waxba ahayn inuusan origin lahayn inuusan sal lahayn. waxaan caawa halkan ku qabanay barnaamij ay dhalinyaradu ugu tala gashay multiculturalka ama dhaqanka ay leedahay Soomaalidu. barnaamijkan waxaa soo qabanqaabiyay dhalinyarada Victoria oo yaani dhalinyarada Ingiriiska taagana. waxaan rajeynayaa inaan barnaamijyo badan sii qaban doono oo kuwaan oo kala ah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta barnaamijkan uu gudoomiyaha jaaliyadda Somali community uu diyaariyay mudane Faarax u dadaala oo jaaliyadda waxqabadkeeda iyo horumarkeeda aad iyo aad ugu dadaalay weeye. waxay caawa ii tahay in mirihii aan bilownay waqti dheer ka hor inay hirgashay ayna ka soo baxday barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo ay hadda laga fakarayo oo kaliya sidii dhalinyaro wax u wadi lahayd. Faarax oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida isla markaana xafiiskiisa soo qaban qaabiyay bandhigan ayaa iiga waramaya munaasabadan. TV-ga Universal ayaan aad uga mahad celinayaa ka soo qaybgalka ay ka soo qayb galeen barnaamijkan waxaan ugu talagalnay waxaanu ka qayb qaadanaynay maalinta loogu talagalay dhaqamada kala duwan oo runtii isbuuc socda. annagu ka Soomaali ahaan dhaqankeena hidaheena iyo cuntadeena inaanu soo bandhigno oo dadka reer Australia halkan aan ugu nimid iyo carruurteena inaanu barnaan ugu talagalnay. waana sanadkii ugu horeeyay runtii aanu qabanno laakiin way sii socon doonaan sanadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inay ka sii wanaagsanaadaan sida hadda aan u sameeyno. alaabta halkan lagu soo bandhigay ayaa runtii waxaa loo sharxay dhalinta ama carruurta halkan ku dhalatay oo aan qaarkood aqoonin magacyada ay kala leeyihiin agabka dhaqanka Soomaalidu ay u leedahay. Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.